حالسلاهي وافرين مدن إنا نسحسوسينه لكن صدح يا شان يا طبعا وانو إياه صدر يا كنتن أنا ديلي مركي اللي ديلي أن تاجيريا وتاكلين يا دقالكم بحنايا warbaahintan waan ka taageerayaa damiir Soomaalinimo haday tahayna ma diin islaamnimo haday tahayna ma farinta labaad ee Ilaahay in la xasuusiyo wax laga yiraahdo way u baahan tahay waxa arkay dadkii ka tacsiyeynayay waxa kamid ahaa afayeenka ururka shabaab Cali Dheere oo dadkii inay ka xun yihiin iyo tacsiyad diray runtii waa la yaabo waa isweydiiyo waxaan raadey dadku muslim yihiin iyaga waa muslimkii naka dhigay Soomaalida hay maxay leeyahay tacsiday tirayaan shacabkii masaakiinta Makal Mukarrama ugu dambeysay soo dhowr iyo 30 maalin ku dilin inta dhaawaca marka laga soo tago shaam soo boqolaal kuma dhimanin tiyaatarka dadkan tumeeyo ku dhowso kuma dhimanin dadkan Soomaalida muslim ma aha miya jirkoodu gubanayo guryaha lagu duminayo oo hantidoodii la baabi'inayo dad la laayay iyo inta dhaawaca haddii la muslimiinta halka konton baa kaga dhimatay sanadkan intuu bilowday ama sanadkan iyo sanadkii hore boqolaal bay iyagu muslimkii Soomaalida ka dileen kuwan muslim dhiig le ma aha miya kuwan muslimka loo barooranayo in la ilaaliyo dhiigoodu yahay kamid ma aha miya mise kan New Zealand ee fogna waa loo tacsiyeen ka daris kale ee Soomaalida ana waa la baabi'in maxay u kala duwan tahay dadka muslimka ah dad magac Soomaaliya muslim ku baabi'isay hadda magac gaal ku baabi'isay soo dilkiya baabi'intii uma hadii laga hadlayo masaajid yaa masaajid dadka ku leeyin jiro qarxin jiray waliba jumca shaqada gacmo yaa masaajid salaad casar jumca isagoo rukuucsan dilay isla jumca dhaweyto boosaaso masaajid bartankiisa yaa ku dilay nin ugaas dadka yaa masaajidka markuu galay ka baxaya laaya iyadoo jumcooyin la tukanaya xamar masaajid kamid ah yaa qarxiyay iyaga ururkooda ma ahayn hadday daacad ka tahay diin iyo Ilaahay dartii ka tahay dad muslimi iyo dhiigoodii inuu qaaliya maxay iyagu masaajidii iyo irdahoodii u leynayaan maxay masaajidda jumcooyinku u qarxinayaan maxay goobahoodii ganacsiga iyo suuqyadoodii ugu baabiinay u halaagayaan masan mudan tahay warkaas oo kaleeto inta si diin iyo daacadnimo loo qaato waxaan dhiraa dad Soomaaliyeed iyo ururka iyo inta la midka atoona inay hadda dhacdooyinkan ka tacsiyeeyaan gaaraan ururadan sidan oo kale ka tacsiyeeyaan waxaan filayaa tacsiib beena way aduu markaad intaad ka tacsiyeynayso boqolaabkee disho muslina oo masaakiin maxaad iska fadhiya kuwa suuq iska fadhiya kuwa gaadiid iyo gawaari iska saara kuwa jidad iska maraya marka adigu ma ka dhigto haddana ku faanto oo haysata janno inaad ku galayso kii kale laaya maxaa ka galay adiga adoo allaynaysa intiisa ka baarada u geysanayay waxaan isleeyahay inay dib u xisaabtamaan bay u baahan tahay inay ka dhaxday run ka tahay inay muslim dhiigii daatay ka xun yihiin kanay maalin walba qubayaan inay joojiyaan ilaan dadkii waa dhameeyeen qaraxyadii bayna ku dhamaadeen waxaa laga yaabaa qof iyo laba dawladaan u soconno dagaal naga dhexeeyo dee 2 iyo 5 haddaad u socotay 200 ee kale maxaa u dishay waxaa wajida farinta inaan iraahdo haddii ay ka tahay muslim dhiigii inay ka danqanayaan oo dad muslima oo la dilay oo dulmi lagu laayay ka xumaanayaan dee xumaantu iyo ka danqashadu kow waxay ka bilaabataa intaadan cid kale uga gurmanin adiga dhibkaaga in laga nabad galo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi inay noqdaan bay u baahan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa mar kale dadka muslimiinta ee meesha dulmiga loogu laayay inuu shahaada uga dhigo dadkoodina sabr iyo iimaan ka siiyo iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayroon ugu bedelo intaasaan ku kubaya kelmadeyda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh